waxaan maanta halkan isugu nimid oo aan ka cadeynayaa in beesha reer aadan hagar ay tahay Khaatumo State of Somalia taasoo markii horena ay ahayd waxaan u sheegayaa oo labaad inaan anigu ahay garaadkii la soo shaqeeyay dawladii indhasheel ninka loo yaqaan madaxweynaha ka ah aniga odayaal badanba haddana aan tan cusub iyo tii kalaba aan la shaqeyn doono shirkan saxaafadeed ee aan isugu nimid rag ka tirsan beesha aadan hagar marka aan warbixin idinka siiyo barnaamijka ujeedadiisa waxaanu nahay beesha dhulbaante waxay tahay qadiyad ahaan waxaanu taageersanahay maamulka Khaatumo State of Somalia annaga oo ku hadlayna magaca beesha reer aadan hagar waxaanu shir saxaafadeedkan kaga hadlaynaa in aanu taageersanahay maamulka Khaatumo State of Somalia waxaanu ku taageersanahay hanti baan ku taageersanahay cudud baan ku taageersanahay waxaan ku taageersanahay kalsooni dhab ah oo jirta halganka ay ku jirto Khaatumo koobta hadda aanu kala soo qayb galay ayaanu jecelahay boqolkiiba boqol ah in aanu muujino Khaatumo State of Somalia hadii aanu nahay beesha ay odayaashu horey uga soo hadleen ee aadan hagar ay Soomaalidu tiraahdaa hununa hadal ma aha ibirisna wax arag ma aha badmadu badan baa iska jira oo dadka qaarkii oo carabka nagu yara duwo waxaanu cadeynaynaa maanta annaga oo wax garad badan iyo dhalinyaro iyo sidii garaad markii horeba u hadlayba dad badan oo magaca ah inaanu nahay Khaatumo State of Somalia haddaanu nahay beesha shacabweynaha aadan hagar waxaanu bahda saxaafadda ku cadeynaynaa in aanu taageersanahay maamulka Khaatumo State of Somalia maalka iyo muruqa iyo maskaxdaba waanu isla garab taagay anigoo ku hadlaya magaca aadan hagar iyo magaca gurbajoogta aadan hagar intaba magacayga waxaa la yidhaahdaa Cabdisaaq Ahmed Hiirad waxaanu ku taageersanahay aadan hagar qabiilka aanu nahay codkayaga muruqayaga maalkayaga Khaatumo State of Somalia waxaanu taageersanahay oo hiil iyo hooba la barbar taaganahay madaxweyne Cali Khaliif Garayd dhammaantayo intan halkan joogta iyo in kale oo reer aadan hagara waxaanu aad iyo aad ugu hanweynahay maamulka aanu leenahay